Arsenal ayaa heshiis cusub kala xaajoon doonin 30 jirka reer Faransa ee Alexandre Lacazette ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, inkastoo ay ogyihiin inay halis ugu jiraan inay wax lacaga ku waayaan xagaaga. Atletico Madrid, AC Milan, Marseille, Newcastle ayaa dhammaantood xiiseynaya weeraryahankan. Dhammaan taageerayaasha kooxda Man United waxay rajeynayaan in macallin Pochettino uu yimaado garoonka Old Trafford, balse waxaa xiga heshiiskiisa lagu burburin karaa lacag gaadhaysa 10 milyan. Markaas way sahlanaan doontaa in garoonka Old Trafford uu yimaado macallinka. Macalinka markuu ka soo tago PSG waxaa la shaacinayaa in Zidane uu noqon doono tababaraha cusub ee kooxda PSG. Bayern Munich ayaa doonaysa inay la sixato 80 jirka kooxda Barcelona u ciyaara ee lagu magacaabo Pedri, inkastoo ciyaaryahankan ay adag tahay heshiiskiisa lacagta lagu burburin karo. West Ham ayaa ka shaqeynaysa heshiis ay kula sixan karto weeraryahanka Sparta Prague u ciyaara ee Czech Republic ee lagu magacaabo Adam Holzeg oo 19 jir ah. Waxaa la soo sheegay ciyaaryahankani inay ku haysato kooxda Liverpool. Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Lille Renato Sanchez ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu kooxda ka tago, ayna jiraan kooxo xiiseynaya sida Arsenal iyo AC Milan. 24 jirka reer Portugal kaasoo xagaagii hore ku dhawaa inuu u saxiixo kooxda Barcelona laakiin ma suuragelin. Ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Fulham Alexander Mitrovic ayaa la sheegay inuu bartilmaameed u yahay kooxo badan bisha Janaayo, iyadoo Villarreal macalinka Unai Emery uu eegayo suurtagalnimada u dhaqaaqista weeraryahankan. 27 jirka reer Serbia ayaa dhaliyay 21 gool 18 kulan oo ciyaaray xilli ciyaareedkan. Barcelona ayaa laga yaabaa inay joojiso heshiiska Samuel Umtiti. Daafaca reer Faransa oo 28 jirka ah ayaa ku guuldareystay inuu ogolaado in la dhimo mushaarkiisa oo ka badan toddobaadkii 200,000 gini, maadaama kooxda ay ku timid dhaqaale darro. Kooxda Bayern Munich ayaa qarka u saaray inay qandaraas cusub u soo bandhigto daafaca Jarmalka Niklas Süle, taasoo meesha ka saaraysa rajadii kooxaha Premier League ugu sarreysa ay qorsheynayeen inay beeca xorta ah ku helaan weeraryahanka 26 jirka ah. Daawada haddii aad ku cusub tahay bartan, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarato. Haddii aad page-ka nala joogtana